waxaan u yeedhayaa oo gudiyadii xaafadaha koos cabdi baan u yeedhi doonaa insha Allah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxaan salaamayaa madaxweyne Muuse Cabdi iyo wasiiradiisa culimadiisa xuqaashiisa marti sharafta beesha fadhido dhan waligayna meel kamaan hadlin marka aan waxaan ahay xaafadda Axmed Dhagax baan ahay haddaan ahay waa xiliftiin baan u dhowahay dadkii ugu hor helay biyaha ayaan ka mid ahay annagoo guriga joogna ayaa albaabka la nagu soo garaacay biyihii baa leedin gelinayaa baa la yiri farxadaan qaaday ilaahun baa loo sheegi karaa subaxa ay biyo ka go'aan reer yaroo iyaguba taangis istay 70,000 oran maysid baaldi biyaa isi ilaah baan ku dhaartay maalmaha qaar baan ku karsanay mooyo saxo shaah inta booyadii noo imaneysay dadkii biyaa lahaan jirayna waanu nahay markii hore waayahay baan niri maalintii biyihii hortayada loqodayay tuubooyinkii horaanu lahayno kuwii cusbaan la noo gelinayay waxaan waxa laale waxa tuubo guriga meesha la keenayo dayrkayga soo dhiga ilaa tamaarowday dhulka laga soo saaray ilaa ta cusub soo dhigta dayrka bishii waxaan cabi jiray $60 labada suuliye gudaha ku yaala laba dayrkay ku yaala waan haddana si fiican u heli jirin booyadii ii shubi jirtay baa ii iman weyday booyad kale ii shubtay maalintii biya la soo deyn doono 4 cisho ka hor ayay booyadii markay biya ii shubtay biya saaw eeg na biya maxaa ku jira saliid baa ku jirta dhaan buu ka soo dhaamiyay maxamed cabdi daarood baa ii yimi waxaan ku dhimaareeyay bal biyahan la ii shubay eeg isla markiiba wuxuu ii soo diray maxay haytooy inamadii shaybaadka ma garanaysaa buu yiri booyadii ku shubtay biyahan ee qabyaaladii xumayd bay qaado waxaan is ninka bilay wax la yeelaa ya ninkaan maanta kor u ka shubanin ee garanaysaa ciidu yahay bilay wax ma areeyay baan ku lacagtii gacantaan uga dhiibo saad garan maayo ya waxaan sameeyay ninkii baan ugu tagay isagoo fadhiya maxay haytooy maqaaxi waxaan ku iri biyaha dadka u shubayso ma waxaad ugu tala gashay caruurtu inay xudur ka qaato maxaad waxa ugu shubaysaa taangigii aan ku siiyay 120 kana 10 foosta ahaana waana dharkan ku meedhanaya ka kale shanta ana kale hadda iga soo jeed biyooda hadii kale waxaan raacinayaa wadada kale waxa weeyaan ilaa maalintii dalka la soo galay biyaha Hargeysa wali ma arkin maareeyo intuu guriga iyaga noogu soo galay yiri ma cabteen biyihii ama geedka guriga hortiisa la fadhiistay oo islaam wal oo gurigeeda fadhidaba ugu tagay madaxa u salaaxay hooyo maxaad sheegtay leh cabaar halka ku gula fadhiyay imaka markii la yeeray inan laga sii jeedo kinsi la yiraahdo halka fadhida kinsi yaan laga iman buur marka ilaahay ma hadii baanu taaganahay biyaanu helay nadiifa abna inanka wakaalada biya ka yimaade ee naga qoro xisaabta ayaan lacagta saad ugu diraa anigoo halkii fadhiyo waraaqdii keena oo wax ilaahay loogu mahadiyo markaan gurigaygii ka imaado ee caruurta wada maqan tahay in wakaalada biya imaado waa inta nama gogashay iska sii laa maqadada karin la ama aan weelkii xalan lahaa wixii isku dhameystiran u bacasaqana ay keenaa waraaqdii ya ilaahay baanu kun goor ugu xamdeynaa wax qabadka Soomaaliland qabatay kursigu dadka ma wada deeqo nimcadu dadku ma wada aragto waanu nimcaanu ku jiraa waa dhirgeynaa waa meedhanaynaa biibanu helaynaa caafimaadkii baan helaynaa waxba nagama maqna nabadana ilaahay iyo idinku baanu idin weydiisanaynaa ilaa idinka ragayagii hadda tahan qorigan isu soo qaadanayna waan baqanaynaa laakiin hadda tahan dhulku uu degan yahay anaguna waan deganaanayna hadalka xume midiya marayna qadiyaan baabanu ka taagan nabaday wax loogu jiraan
noo kursiya noo caafimaada noo dana caruurtayada u dana iskuulka caruurtayada u dana kuwii aan imika sii dhalay kuwii dhaleen baa imika iskuuladii aan geynayna maxamed cabdi daaroodna waanu u mahadnaqaynaa waxaan leef habeen ku daawanayay isagoo labadii habeenimo October leef kaga jira biyo markuu beebka saa u talaabinayay madaxweyne haddaad soo noqoto ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaad soo noqotee haddaad soo noqoto maareeyaha naga bedeli dad kale wax qabtayba way jiraan oo wax badan oo qurux badan qabtay waaxda gurigayga agtiisa laga dhisay yaa dee laba maqsin bay ahaydoo lagu tumi jiray maxay ahayd tooy soo baxaydii maanta waa adiga ka caynka u eegtahay oo waxba la qabtay indhihii caafimaad qabun baana arkaya waxa la qabtay indhihii aan si caafimaad qabin ma arkayaan waxa la qabtay waxa la doonayaa inay dunidu wada dhalaasho cashuurta dee soo bixi dunidu inay wada dhalaasho la doonayaa ha cunin dee cashuurta ha leexsanin wuxuu ku qaba dhulka halkan waxa laga soo bilaabay inagoo caruurteenu ay ku fadhiistaan daasad caano boore maantana kuraasida ugu quruxda badan leeyahay iskuulka ugu quruxda badan leeyahay caruurteenu ka soo baxdaa wixii waxa weeyaan gamba u gee haddii gamba u gee la waayo waxba ma ka jiraan madaxweyne waad mahadsan tahay halka dalka ka sii wad waa ku dooranaynaa haddii ilaahay kuu qadaro weeye yaa waa hadduu ilaahay kuu qadaro waa ku dooranaynaa laakiin haddaad doorashada ku soo baxdo maxamed cabdi daarood naga bedeli